bismillaahi raxmaan raxiim wacan wanaagsan daawada leedina hantiinba meel walba aad joogtaan kuna soo dhawaada warkii Soomaali News 724 halkaan idinkaga akhrin doono anigoo Ismaaciil Cali Ajaay qodobada aad warkeena ku daawan doontaan waxaa ka mid ah fila Soomaaliya oo war ka soo saartay shirkii maanta furmay oo looga arrinsanayay doorashooyinka dalka u dhaxeeyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo madaxweynayaasha maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir faahfaahin dheeraad ah ayaan idinkaga haynaa sidoo kale waxaad warkeena aad ku daawan doontaan faahfaahin dheeraad oo ka soo baxaya dagaalkii xalay ka dhacay duleedka magaalada Muqdisho waxaad kaloo warkeena aad ku daawan doontaan Soomaaliland oo gacanta ku dhigtay hub walxaha qarxa iyo rag weerar qorsheynayay akhbaaraadka kale caalamka aad warkeena ku daawan doontaan waxaa ka mid ah Gariiga oo hub cusub iibsanaya xilli ay xiisad kala dhaxayso Turkiga qodobadaas iyo qodobo kale ayaad warkeena ku daawan doontaan asxaabay u diyaar garooba daawade haddii aad ku cusub tahay channelkan Somali News 724 subscribe saar gambaleelka taabo siina share garay si asxaabtaada kale u gaarto wararka iyo waliba macluumaadka aan channelkan soo gelino warkii oo dhan wahagaag daawada liminkan aan idiin soo qabto qodobka ugu horeeya warkeena aad ku daawan doontaan madaxtooyada Soomaaliya ayaa war rasmi ah ka soo saartay furitaanka shirka wadatashiga dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada oo maanta si rasmi ah uga furmay xarunta madaxtooyada qaranka kusimaha agaasimaha warfaafinta iyo xiriirka warbaahinta madaxtooyada mudane Cabdirashiid Maxamed Xaanshi oo furitaanka shirka kadib la hadlay warbaahinta ayaa tilmaamay dadaalka madaxdu ay ku bixinayaan sidii loo sii ambaqaadi lahaa dhamaystirka heshiiska doorashooyinka dalka si ay waqtigeeda ugu qabsanto madaxtooyada qaranka waxa ay soo dhaweynaysaa sida madaxda dawlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir ay ugu dadaaleen ka soo qaybgalka shirkan iyadoo haatan loo dhan yahay kamari dhalinta shirkan oo muhiim u ah hirgelinta doorashada dalka ayuu yiri Cabdirashiid qoraal ka soo baxay madaxtooyada ayaa lagu sheegay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu furitaanka shirka ka hor kulamo hordhaca la qaatay madaxda dawlad goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir isagoo qodob gaar ah diiradda saaray oo uu kala hadlay kulankaas ayaa ku saabsanaa sidii shacabka Soomaaliyeed ay u heli lahaayeen xuquuqdooda dastuuriga ah ee ku aadan in ay doortaan mas'uuliyiinta ay ku aaminayaan talada dalka ayaa lagu yiri qoraalka fila Soomaaliya hadalkan ayaa laga dhadhansan karaa in macnihiisu yahay in shacabka codeeyaan oo ay helaan awood ay ku doortaan kuwa metelaya taasi oo madaxweynaha marar badan uu dalbaday furitaanka shirka waxaa ka qayb galaya madaxweynayaasha dawlad goboleedyada Hirshabeelle mudane Maxamed Cabdi Awaare Koonfur Galbeed mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Puntland mudane Siciid Cabdullaahi Dani Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaama Galmudug mudane Axmed Cabdi Kaariye iyo waliba gudoomiyaha gobolka Banaadir mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish faahfaahin dheeri ah ayaa waxa laga helayaa dagaal u dhaxeeya al-shabaab iyo ciidanka midowga Afrika ee AMISOM oo xalay ka dhacay qayb ka mid ah deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka Muqdisho wararka ayaa sheegaya in dagaalka uu ka dhashay kadib weerar al-shabaab ay ku qaadeen saldhigga ciidanka AMISOM ay ku leeyihiin xaafadda Arbacow ee deegaankaasi sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daray in weerarka kadib uu xigay iska hor imaad toos ah oo la isku adeegsaday hubka nuucyadiisa kala duwan ila deegaanka ah ayaa sidoo kale sheegay in dagaalka oo socday muddo kooban ay maqlayeen dhawaqa rasaasta isweydaarsanayeen labada dhinac khasaaraha ka dhashay weerarkaasi iyo dagaalka xigay ayaa wuxuu ku kooban yahay dhinacyada dagaalamay lamana oga inta uu gaarsiisan yahay inta badan dagaalyahanada al-shabaab ayaa weeraro ku dhufo ka dhaqaaq ah ku qaada saldhigyada ciidamada dawladda iyo kuwa AMISOM ee gobolka Shabeellada Hoose taliyaha booliska Soomaaliland sareeyo guuto Maxamed Aadan Sadiiqa ayaa ka warbixiyay howlgallo ciidanka ammaanka 48 saac ee la soo dhaafay ay ka sameeyeen magaalooyinka Hargeysa iyo Burco taliyaha ayaa sheegay in howlgallada oo ahaa kuwa qorsheysan lagu soo qabqabtay ilaa 13 qof oo looga shakisan yahay argagixisanimo hub iyo walxaha qarxa sidoo kale wuxuu intaasi ku darayaa in ragga la qabtay oo ay ku socdaan baaritaano dheeraad lagu tuhmay in maleegayeen weeraro ka dhaca Hargeysa iyo Burco sareeyo guuto Maxamed Aadan Shiiqa oo hadalkiisa sii wata ayaa xusay inay sidoo kale ku rajoogaan xubno kale oo iyaguna laga shakisan yahay waxa kale oo uu digniin u diray milkiilayaasha guryaha iyo kuwa hoteelada wuxuuna tilmaamay in loo baahan yahay in ay ogaadaan cid
cid kasta oo ay wax ka kireynayaan. ciidamada ammaanka Somaliland ayaa 48 saac ee la soo dhaafay qabtay 13 qof oo looga shakisan yahay in ay maleegayeen weeraro argaxiso oo xiriir ah oo la beegsanayay magaalooyinka Hargeysa iyo Burco. booliiska ayaa sidoo kale qabtay hub iyo walxaha qarxa. ciidamada ammaanku waxay sidoo kale ku daba jiraan xubno kale oo loo tuhmayo hubso cidaad ka kireynayso gurigaaga. qolada hoteelada waxa iga dignina ha hubsadaan ciday hoteelada ka kireynayaan ayuu yiri taliyuhu. si kastaba ahaatee shalay ayay ahayd markii saraakiil ka tirsan ciidamada dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ay shaaciyeen in xubno ka tirsan al-shabaab ay gudaha u galeen Somaliland kuwaasoo ka baxay dhanka dhulka buuraleyda Galgala. iminkan akhbaaraadka caalamka. xukuumadda Giriiga ayaa ku dhawaaqday in ay hub dheeraad ah soo iibsanayso xilli xiisada kala dhaxayso Turkiga ay cirka isku sii shareerayso. hubka ay soo iibsanayaan waxaa ka mid ah 18 diyaaradaha dagaalka Faransiisku uu sameeyo ee nooca loo yaqaano Rafale. ra'iisul wasaaraha Giriiga ayaa sheegay in sidoo kale ay soo iibsanayaan 4 markab oo kuwa dagaalka iyo 4 diyaaradood oo ah nooca helikobtarada ee ay adeegsadaan ciidamada badda. ra'iisul wasaaraha Giriiga ayaa sidoo kale ku dhawaaqay inay kordhin doonto tirada ciidamada dalkaasi. waxaa la joogaa xilligii la xoojin lahaa ciidamada qalabka sida. waxaa sidaasi sheegay madaxweynaha Giriiga. Giriiga ayaa sidoo kale qorsheynaya inuu soo iibsado hubka lidka diyaaradaha iyo gantaalada difaaca cirka. xiisada u dhaxaysa Turkiga iyo Giriiga ayaa cirka isku sii shareeraysay, taasi oo ku saabsan Turkiga oo sahmin shidaal ka wada bariga badda Mediterranean-ka. xukuumadda Turkiga ayaa dhowaan markab shidaal iyo gaas ka baara u dirtay goobo ay ku murunsan yihiin Giriiga. labadan dal oo ka wada tirsan ayay waxay labaduba sheeganayaan lahaanshaha goobaha shidaalka laga baarayo, taasi oo sababtay cabsi iminka laga qabo in xiisada ay sii kululaato. sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee AFP, Giriiga ayaa gaashaandhigga ku bixinaya lacagtii ugu badneyd muddo 20 sano ah. warkii aad ka daawanayseen Somali News 724 daawadayaal waa naga inta. si wararka iyo muuqaalada aan soo gelino channelkan Somali News 724 idin soo gaaro, daawade subscribe dheh gambaleelka taabo siina shaqeeyay si asxaabtaada kale u gaarto.